بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan bilaabi doonaa cutubkeena shanaad ee maadada xisaabta fasalka 8. cutubkeena shanaad waxaan ku baran doonaa probability ayaan ku baran doonaa oo ah aan ka qaadan doono waa maxay introduction to probability ama hordhac. cutubkeena shanaad casharkiisa koowaad ayaan bilaabaynaa. casharkiisa koowaad cutubkeena shanaad waxaan ku baran doonaa introduction to probability oo hoos imaan doona introduction inaan hordhac ka sameeyno probability iyo b inaan qaadano waa maxay probability of single events inaan aragno. markaa kadib oon intaa barano waxaan qaadan doonaa hadduu alla idmo exercise-ka learning outcomes-ka ama hadaafta casharka laga leeyahay markuu dhammaado ardayga waxaa looga baahan yahay marka koowaad demonstrate some basic probability terms inuu ardayga muujiyo waa maxay inuu yaqaan erayada probability-ga oo asaaska midda labaadna waa maxay use the formula for calculating the theoretical probability of single event inuu single event probability inuu list gareyn kara ama uu calculate gareyn kara ayaa laga rabaa. cashirka marka introduction-ka ayaan u gelaynaa introduction to probability. introduction to probability marka koowaad probability waa maxay horta waa maxay probability erayga af Soomaali ahaan loo yaqaan ihtimaal. ihtimaalka muxuu noqon karaa probability is the likelihood waa maxay or a chance of an event occurring waa maxay waa chance ama fursadii wax la saadaalin kara inay dhici karaan waa saadaalin ama malawaal oo waxaan sidaas bay noqonayaan iyo sidaas bay noqonayaan in la dhaho probability associated with experiments marka waxay ayaga la xiriiraan wax la qabanayo where the outcome on kuwaas natiijada ka dhalan doonta is not known aan la garanayn waxa ka dhalan doona hadii tusaale ahaan ciyaar la dheelo oo kaleeta whether win ay ku dhamaan doonto ciyaartaas ama lose ay ku dhamaan doonto ma predict gareyn karna laakiin waa saadaalin karna waa maxay prediction lagu ma sameyn kara ayaa lagu wadaa. for example marka hadii tusaale aan ka soo qaadana if you toss a coin will you obtain a head or tail hadii shilin kor u tuurto waa maxay head baa helaysaa oo ah madax ama tail baa helaysaa oo xarash we cannot predict taas laakiin qof ayaa iska predict gareyn kara waxa la dhihi karaa xarash ama waxa la dhihi karaa madax waa 50-50. sidoo kale if you roll a die will you obtain 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 hadii die aad tuurto ama laadhuug aad tuurto ama asaa u wareejiso meeyaad helaysaa lixda number oo laadhuuga leeyahay midkood we cannot predict ayadana laakiin maxaa kale sidoo kaleeta probability measures and quantifies how likely an event related to this type of experiment will happen. marka probability-ga waxay sameynaysaa waa maxay measurement inuu ku sameynaysaa then quantity ayay siinaysaa oo qiimaha wax la qabtay natiijada ka dhalan doonto ama wixii dhici doono markaad wax sameeyso. the probability of something which is certain marka probability waxaan la hubay inay dhacayaan 100% waxa weeye is 100 divided by 100 1 bay noqonaysaa hadii probability-ga waxa la hubo tusaale ahaan teamka ciyaaray hadii team kamid uu rain rabo la og yahay waxa la leeyahay probability-gaas waa 1 sidoo kale roob dii raba hadii probability-giisa la dhaha roobka wada ayaa xaqiiqay tahay certain uu yahay then waxa la dhahaa 1 way probability-ga. the probability of something which is not possible ama impossible haduu waxaas impossible yahay probability-giisu waa 0. hadii tusaale ahaan aad dhahdo teamka uu reynaya laakiin aanan macquul ay ahayn teamka inuu reynayo then taa waxay noqonaysaa probability-giisu waa 0. haddaad tirahdo I fly in the air adiga keliga waxaan ku duulayaa hawada haddaad tirahdo then probability-gaas ma run baa it's not possible waxay noqonaysaa 0. sidoo kale the probability of something not happening is 1 minus the probability that it will happen. marka tusaale ahaan team baa winning sameeyay probability-ga lose-ka haddaan rabo inaan soo saaro waa maxay waxaan leeyahay 1 minus the win marka waxaan helayaa lose-ka probability-ga lose-ka taas ayaa laga wadaa qodobkaana.
basic probability terms ayaan arkaynaa marka erayada baan arkaynaa erayada probability terms ka la xiriira probability ayaan arkaynaa waxaa koowa sample space waa maxay the sample space is a set of all possible outcomes in an experimentiga la sameeyey all possible outcomes ka dhalan kara ayaa waxaa la yidhahdaa sample space tusaale waxaad roll garaysay laadhu hadda saa u roll garaysay waa maxay sample space ka soo bixi kara waa maxay waa either 1 either 2 either 3 either 4 either 5 or 6 intaas marka sample space waxaa la dhihi karaa marka intaas oo dhan dhammaan tusaalehaan again haddii aad shilin aad toos garayso waa maxay ama aad shilin kor u tuurto waxaa sidoo kale ka dhalan kara isagana sample spacekiisa wuxuu noqon karaa you either get head or tail kaasna waxaa la dhihi karaa waa sample spaceki shilin la toos garay ama coin la toos garay for example marka if a die is rolled the sample space s is given by haye marka haddii aad laadhu aad roll galayso ama die aad roll garayso waa maxay sample spacekiisu wuxuu noqonayaa 1 2 3 4 5 6 intaas laadhugu uu leeyahay waa all possible outcomes ka imaan kara waxaa kale oo jira haddana events marka waa maxay we define an event as specific outcome of an experiment event marka waxaa la dhihi karaa waa wixii specific ka dhashay experiment aad samayso an event markaa waxaan ku tilmaami karnaa inay tahay subset of sample space waxay ka dhalanaysaa waa maxay all possible outcomeska ayay ka mid tahay waa set ka mid ah all possible outcomeska tusaale marka haddii aad die roll garayso aad eventi usoo qaadato set of possible outcomes aadna tiraahdo set of possible outcomes are set of possible outcomes aad tiraahdo set of possible outcomes aad usoo qaadato inay yihiin all even numbers then all even number haddaad usoo qaadato set e wuxuu noqon karaa ama event e waxay noqon kartaa 2 4 and 6 markaa waa maxay waa events markaa waa eventska lagu cayimay oo exactly ah laakiin eventskan haddaad fiirisa waxay ka mid yihiin sample space oo ah laadhuuga all possible outcomeska ka dhalan kara 2 iyo 4 iyo 6 ba way ku jiraan labada terms haddaan fahana then exampleskan marka waa ka shaqayn karnaa example 1 waxaa la yidhi a dice is tossed list the outcomes which make up event E of obtaining even numbers, B of obtaining number less than 1, and C of obtaining number greater than 0. saddexda event ayaa lagu weydiiyay event 1 waa maxay ama eventiga koobaad waxaa lagu yiri even number probability of obtaining even number, B na waxaa lagu yiri obtaining number less than 1 iyo C oo lagu yiri obtaining number greater than 0. haye aan events kaas aan list gareyna marka solutionski eventiga koowaad waa maxay waa event E of obtaining maxaa lagu yiri event E of obtaining even number. Okay, event E of obtaining even number laadhugu waa naqaan wuxuu leeyahay how many and wuxuu leeyahay 1 2 3 4 5 and 6 faces. lixda face uu leeyahay hal face uu ku qoran 1 6 face waxa ku qoran 2 face waxa ku qoran 3 face waxa ku qoran 4 ilaa 6. lixda face markuu leeyahay laakiin eventiga waxay ku weydiisay obtaining even number. Even number haddii marka la do atos garayso oo qofka ku dha even numbers ayaan helaya then waa inaan u list garayna marka even number qofku wuxuu heli karaa marka koowaad 2 marka labaad qofku wuxuu heli karaa 4 marka saddexaadna wuxuu heli karaa 6 marka eventigaas sidaas baan hadda ku list garayna way event of obtaining even numbers sidaas bay ku dhamaan example ki xigana waxaa la yiri event B of obtaining number less than 1. haye B amaane event B aan soo saarnay event B waxaa lagu weydiiyay obtaining number less than 1 qof baa la do roll gareeyay markaas waxaa lagu yiri number less than 1 inuu heli karo wax ka yar hal la do dad roll gareysa hal ma ku soo bixi kara wax ka yar like 0 ama negative may waa may waxa ku jira la dhuugu waa 1 ilaa 6 0 wax ka yar ma walahan bal aan dhuugu sida awgeed eventigan waa mid ah waa maxay impossible way marka waxay noqonaysaa 0 na qaabkaaba u qorina 0
taa marka waa maxay eventigaas inay dhacdo it's not possible waa eventiga waa mid 0 ah ama waxaa u qori kartaa just eventigaas waa impossible ma dhici karto saas bay ku noqonaysaa 0 event C oo event C ah C waxaa lagu yidhi C waxaa lagu weydiiyey obtaining number greater than 0 haye tirooyinka ka weyn inuu qofka laadhuuga toosgaray uu heli karo waa maxay tirooyin ka weyn 0 uu heli kara 0 inta number ka weyn uu laadhuuga leeyahay waa maxay waa 1 2 3 all of them ilaa 6 waa maxay feeska koowaad 2 3 4 5 iyo 6 kaana waa maxay waa inta eventiga sidaas uu noqon haddii qofka uu doorto waa maxay laadhuuga haddii la toosgaray oo qofka hadhaa waxaa soo bixi doona tiro ka weyn 0 then qofkaas waa maxay waa qofka ugu aqli badan it means eventigiis waa wax suurtagal markii la tuuro face kasta u dhaco wuu doortay qofkaan aan u imaadna marka qofkaan wax possible ahayn uu doortay wuxuu yidhi number less than 1 qofkaan wuxuu sheegay inay dhacaan lagama yaabo number less than 1 haddii qofka doorto lacal waa maxay laadhuuga ma laha number less than 1 way marka eventigan waa impossible sidoo kale halkaan aan imaadna marka tan waxaa lagu yidhi even number qofkan oo kale waa half probability-ga inuu win gareeyo qofkan waa half laakiin kan waa 100 ama waa 1 tusaalaha ku xiga marka tusaalaha ku xiga example 2 ah example 2 ayaan fiirinayna example 2 waxaa lagu yidhi list the sample space of each of the following experiments kuwan sample space ayaan la weydiiyay awal hore waxaana la weydiiyey waa maxay waxa loo yaqaan events laakiin markan waxaa la weydiiyey sample space na waa maxay all possible outcomes waxaa la weydiinaya natiijo kasta oo ka dhalan karta waxaa la sameeyey ama experimentiga la sameeyey example ka koowaad tossing a coin ayaa la yidhi haddii shilling kor loo tuuro natiijada ka dhalan karto sidoo kale b waxaa la yidhi tossing a six-sided dice haddii laadhuu 6 weji leh kor loo tuuro all possible outcomes ka dhalan kara iyo b picking a letter from the word heart haye inaad xaraf ka doorata inaad erey ka doorata inaad xaraf ka doorata aan leeyahay ereyga heart ama wordka heart inaad a letter ka soo baxsato haye example 2 solutionkiisa aragna isagana mar example ka hore sample wuxuu ku saabsanaa events example kana sample way example ka bdiisa qaybtii baad bdiisa waxaana la weydiiyey tossing a coin horta muxuu leeyahay coin wuxuu leeyahay it's either a head or tail wuxuu yeelan karaa head oo ah madax iyo tail oo ah xarsh labadaas dhinac ayuu u kala dhici karaa head ama tail buu u kala dhici karaa marka probability-giisa oo ama haddii aan rabno inaan list garayno wixii ka soo bixi kara coinka then coinka sample space-kiisa sample space s of coin sample space kiisa wuxuu noqonayaa s waxay la mid tahay waa maxay waxaan dhahnay possible outcomes-ka waa inta sample space haddaa la weydiiyeyna dhammaantood ayaa la weydiiyey so it's either a head or a tail finish example-kaas sidaas baa u list garays waa maxay laakiin sample space ayaa lagu weydiiyey sample space iyo event farqi ugu dhexeeya sample space all possible outcome ayaan tixinaa qaybtiisa qaybta a bay ahayd b qaybta b baan u gudbaynaa qaybta b waxaa la weydiiyey tossing a six-sided dice waa kan waa laadhuu 6 weji leh 6daa weji ayuu leeyahay haddii uu qofka marka toos gareeya laadhuu sample space-kiisa wuxuu noqon karaa all the outcome sample space-kii oo dice-ka wuxuu noqonayaa markaas natiijo kasta oo ka dhalan karta it can be 1 it can be 2 it can be 3 it can be 4 it can be 5 and it can be 6 haddaad dice roll garayso 6da face mid baad helaysaa kaana waa sidaa kii example-ka ugu dambeeya waxaa lagu yidhi picking a letter from the word heart heart haddaan rabno inaan marka letter kala soo baxo sample space-ka ama all possible outcomes haddii aan tusaalehaan aniga a baan iska dooran karaa mar kale waxaan dooran karaa h mar kale waxaan dooran karaa t laakiin sample space ayaa lagu weydiiyey markaan oo waxaa lagu weydiiyey possible outcomes
ka dhalan kara markaan all possible outcomes ka halkan ka dhalan kara waa ama h ama a ama t waxaa ka dhalan kara sample space ka wuxuu la mid yahay either h either a or t kaana waa sidaa buu noqonayaa kaa haddaba markaa cashirkeeni halkaabuu ku dhammaaday waxaan kusoo qaadanina cashirkeena ugu weynaya waa maxay waa inaad sample space iyo events kala taqaanid sample space waa maxay waa all possible outcomes eventna waa maxay waa specific outcome waa maxay waxa dhacayo wixii specific la doorta ayay noqonayaan markaa ugu dambeyso waxaa la rabaa exercise-ka inaad isku soo daydid haddii aad cashir ka fahamtay exercise-ka baad isku dayeysaa halkaa buu cashirkeena maanta ku dhammaaday. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.